qaybtiisa dambe labadiisa dhinac wuxuu leeyahay qaab dhismeed u muuqaal dhow kan ukunta mise beeda lagu magacaabo tonsillis. Tonsilliska waxa ay ka shaqaynayaan inay jirka ka difaacaan waxyeelada kala duwan sida infectionska. Tonsilliska haddii uu caabuq ku dhaco waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa tonsillitis, halka afka hooyo lagu dhaho qooman mise quuman. Xanuunkani waxa uu ku dhici karaa cid kasta, laakiin inta badani wuxuu ku dhacaa carruurta. Qoomanka wuxuu ka mid yahay xanuunada ku fida muddo kooban. Waxa uu ku gudbi karaa haddii toos mise si lama filaan ah loo taabto dheecaan ka yimid qof qaba xanuunkan sida candhuufta. Haddii uu dhibanaha qaba xanuunkani hawada u raaciyo qof kale sida hindhisashada mise qufaca. Xilli huuriska xanuunkani waa inta u dhaxaysa 7 ilaa 10 casho. Calaamadaha qoomanka waxaa ka mid ah cuno xanuun xilliga liqitaanka, qandho iyo qarqaryo, ur ka soo go'a xilliga qofka uu neefsanayo, dhago xanuun, madax xanuun, calool xanuun, daan barar, tonsilliska oo casaada mise guduuta. Waxaa sidoo kale carruurta lagu arki karaa kacsanaan, inuu rabitaanka cunadooda hoos u dhaco, iyo dhareer badan. Waxaa jira qaabab kala duwan oo aad ku tijaabin karto inaad ku daweyso qoomanka adigoo jooga gurigaaga. Waxaa ka mid ah cabidda biyaha badan, qaadashada nasashada. Haddii aad tahay qof cabayo sigaarka, fadlan jooji, waayo wuxuu kordhin karaa mise carin karaa xanuunkan. mise inuu qofka ku luqluqoodo biyaha leh milixda iyo diirimaadka. Qaado dawooyinka la ogol yahay in laga iibsado farmasiyaha sida ibuprofen sidaad iskaga yarayso caabuqa iyo xanuunka. Waxaad u baahan tahay inaad dhakhtar aado haddii aad carruurtaada ku aragto cuno xanuun ka badan 24 ilaa 48 saac, xanuun xilliga laqitaanka, tabardari daran mise oohin saa'id ah, si degdeg ah u aad dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow. Haddii ay neefta kugu dhagayso mise haddii aad ku aragto ciyaalkaaga dhareer badan, haddii aad ku aragto xanuun saa'id ah xilliga laqitaanka. Sidaan horay u soo tilmaannay, tonsilliska waxa uu qayb ka yahay difaaca jirka. Waxyaabaha uu ka difaaco waxaa ka mid ah bakteeriyada iyo fayrasyada. Sidaa awgeed wuxuu u nugul yahay inay waxyeeleeyaan. Qoomanka waxaa inta badan keena fayras, laakiin waa ay keeni kartaa bakteeriyada, gaar ahaan nuuca lagu magacaabo Streptococcus pyogenes. Haddii carruurta laga daweyn waayo xanuunkani, waxaa dhici kara inuu dhib ku noqdo neefsashada, inay hurdada ka soo boodaan mise kacaan, waayo waxaa ku adkaada neefsashada, infekshanka inuu jirka intiisa kale ku fido. Qaabka ugu wanaagsan xanuunkani loogu hortagi karo waa inaad ciyaalkaaga nadaafadooda ku dadaasho. Waxaad bartaa in gacmaha la iska dhaqo xaajada kadib. Markuu infekshanka qoomanka ku dhaco kadib, inaad ciyaalkaaga burushkooda u beddesho mise cadaygay markaasi ku cadaysan jireen.